isku geey labadaada baabacadood iskana fiiri calaamadahan. xariiqa baabacada qofka waxa ay sheegayaan oo ay muujinayaan waxa ay jecel yihiin. tani waa arrin xaqiiqo ah oo marar badan la tijaabiyey. dadka ku takhasusay cilmigan waxaa loo yaqaanaa palmistries. isla cilmigan waxaa la yiraahdaa palmistry. cilmigan baabacad akhriskuna dhowr kun oo sannadood ka hor ayuu ka jiray Hindiya. isla waqti xaadirkani adduunka oo dhan ayaa laga wada yaqaanaa cilmigan. haddaba daawade like-ta ku muuji ka helidaada si aan u soo badino muuqaalada caynkani ah. mahadsanid. haddaba aynu bilowno. qof kasta waxa uu leeyahay mid ka mid ah saddexdan baabacadood waxayna muujinayaan dabeecadaha qofka. haddaba adigu midkee ayaa tahay? aynu ku bilowno midda koowaad. labada layn ee labada gacmood ay isku midka yihiin. haddii baabacada gacmahaagu ay sameeyaan xariiq isku mid ah, nasiib ayaad leedahay. qofka noocan ah dhab ahaantii waa qof leh ujeedooyin u gaar ah, waxayna doorbidaan inay joogteeyaan xiriirkooda. waana qof macquul ah, wuxuuna necab yahay khiyaanada. sidoo kale waa qof dareen badan oo dabeecad u saaxiib ah, wuxuuna ka taxadaraa dabeecadaha dadka kale. waa qof maskax badan, waana qof aan aad u foolxumayn oona aad u qurux badnayn. yacni waa qof dhexdhexaad ah. waa qof degan oo dareen xasaasi ah leh. waa qof tixgeliye oo taageero xiriirka joogtada ah, ee ma ahan qof kolba mid jacayl ku abuura haddana kaga baxa. sidoo kale waxaa la yiraahdaa qofkani markii uu qof jeclaado, qofkii intuu u tago uma sheegan karo. waxaana ka mid ah dabeecadihiisa qofkan sidoo kale inuu aragtiyaha ay leeyihiin dadka kale uu ku taageero oo uu tixgeliyo. midda labaad, leynka gacanta bidix oo ka hoosaysa midda midig. qofkani waa shakhsi ku xeel dheereeya jacaylka, waana qof caqli badan. qof kale xariiqa noocan ah waa qof ku fiican markii la dhaho xagga jacaylka. waa qof romantic ah, waana qof ka madax bannaan kuwa kale. waa qof aan ka fikirin oo aan ka walwalin waxa ay dadka kale ka fikiraan. qofkani waxa uu leeyahay dareen lixaad, yacni marka uu ku dhegaysanayo caqliga ayuu kuu soo jeediyaa oo si fiican ayuu dadka u dhegaystaa. qofkani ama shakhsigani waa shakhsi sii xigmad bata sanadba sanadka ka dambeeya. qofkani waa qof inta badan tixgeliya oo taageera dadka waaweyn. sidoo kale waqtiyada qaar waxa uu xiriir la sameeyaa qof aad iyo aad ugu weyn. midda saddexaad, leynka gacanta midig oo ka hoosaysa midda bidix. waxaa ka mid ah dabeecadaha qofkan. qofkani waa qof gardaro badan, sidoo kale carqalado kala kulma xagga jacaylka. waa qof ujeedooyin badan, inta badan waa uu adkaysan karaa dhibaatooyinka waaweyn. waa qof kalsooni leh, inta badanna xiriirka dhabta ah kuma degdego. qofkani waxa uu doortaa qof aad u qurux badan. calaamada ugu dambeeya oo uu qofkani leeyahay waxa weeye qofka uu guursanayo amaba uu xiriir la samaynayo waa qof inta badan ka yar. ugu dambayn, haddii aad leedahay mid ka mid ah calaamadahan, inagula wadaag commentiga hoose. haddii muuqaalku ku xiise geliyeyna like-ta inoogu muuji ka helidaada, lana wadaag asxaabtaada. waadna ku mahadsan tahay daawashadaada.